Falastiin waxay ahayd sidaan haddase waa sida tan kuma dhicin waxaan oo idil hal habeen ilaa iyo horantii 1900 Falastiiniyiintu waxay ka mid ahaayeen boqortooyadii Ottoman kadib waxa bilowday inay wax walba isbedelaan bilowgii dhaqdhaqaaqaynta naasiyiinta gudaha qaaradda Yurub waxay soo jeediyeen in la aasaaso wadan madax banaan ee Yuhuud leedahay aragtihana laga sameeyo gudaha wadanka Falastiin dafcadii koowaad ee Yuhuudda Yurub ku noolaa ayaa bilaabay inay u soo haajiraan halkaasi kadib dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka boqortooyadii Ottoman ayaa burburtay kadib Falastiiniyiintu waxay hoos timid xukunkii Ingiriiska xilliga jiray 1917 Ingiriisku wuxuu shaaciyay inuu taageersan yahay aasaaska wadan ay leeyihiin Yuhuud ee gudaha Falastiin laga dhisayo marka waxa batay tirada Yuhuudda degayo halkaas waxa si sare u kacay xiisad u dhaxaysa Carabta iyo Yuhuudda xiisad u dhaxaysa labada dhinac waxay sababtay inuu Ingiriisku loogu codeeyo inuu ka baxo halkaas isla markaana qaramada midoobay ay la wareegto maamulka kadib qaramada midoobay waxay ansixisay qorshe ah in laba wadan loo kala qaybinayo wadanka Falastiin Yahuud Israa'iil iyo Carabta Falastiiniyiintu marka magaalada barakeysan ee Qudus waxay noqotay aag caalami ah oo ay kontroolkeeda hayaan qaramada midoobay Yahuudda wuxuu aqbalay qorshaha qaybintii qaramada midoobay si uu u ilaaliyo wadan madax banaan balse hadafka wadamada Carabta ee dariska la Falastiiniyiintu ayaa ahaa inay la wareegaan dhulkaasi tani waxay keentay bilowgii dagaalkii koowaad ee Carabta Israa'iil ka dhex qarxo balse Israa'iil gudusheedii dagaalka kadib waxay bilowday inay la wareegto dhulkii kale ee Falastiiniyiintu ay maamuleysay qaramada midoobay dhulkii waxa loo sii kala qaybiyay saddex qaybood Jordan waxay qabsatay galbeedka iyo bariga Qudus Masarna waxay qabsatay Gaza kadib Israa'iil waxay la wareegtay 78% dhulkii taariikhiga ah Falastiiniyiintu ay ku jirto galbeed Qudus 700,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa noqday qaxooti iyadoo maalintaas lagu xasuusto maalintii Al-Nakba 1967 6 maalin oo dagaal ayaa qarxay taas oo u dhaxaysay Israa'iil iyo wadamada Carabeed ee dariska la ah dhamaadkiina markuu wuxuu eekaaday sidaan oo kale Falastiin hadda waxa si buuxda u qabsatay Israa'iil waxayna Israa'iil bilaabeen inay degaan Gaza iyo daanta galbeed taasoo ka dhalatay xurguf u dhaxaysay Israa'iil iyo Falastiin taasoo keentay inay sare u kacdo ururkii loo yaqaan PLO ama Palestinian Liberation Organization ururka xoreynta Falastiiniyiintu taasoo ujeedkoodu ahaa ka xoreynta Israa'iil dhulkii Falastiiniyiintu ururka PLO ama ururka xoreynta Falastiiniyiintu ugu dambeyn wuxuu aqbalay kala qaybintii dhulka ee u dhaxaysay Falastiin iyo Israa'iil laakiin isku dhici sidaas kuma uusan dhamaan marka tira aad u badan ayaa deegaamin loogu sameeyay Israa'iil taasoo khasabtay dhulkii Falastiin balse qaramada midoobay waxay ku tilmaamtay in deegaameyntaasi ay tahay mid sharci darro ah kadib intaasoo idil waxa dhashay ururka Xamaas taasoo iyaduna ahayd mid u taagan ka xoreynta Israa'iil dhulka ay ka haystaan Falastiiniyiintu Mareykanka Israa'iil iyo PLO ururkaasi ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada Oslo taasoo loogu kala qaybinayo daanta galbeed saddex qaybood kuwaas oo kala ah qaybta A oo ay si buuxda Falastiiniyiintu maamulayso qaybta B ay si wadajir wada maamulayaan Israa'iil iyo Falastiin iyo qaybta C ay si buuxda Israa'iil ay maamulayso balse xalkani wuxuu si abuuray dhibaato hor leh ilaa qaybta C waa qaybta ugu badan ee qeyraadka badan ku jiro ee daanta galbeed sidoo kale Falastiiniyiintu waxa laga xadiday gelista qaybtaasi iyadoo wada hadalkii nabadeed ay noqotay mid aan guuleysanin taasoo ka dhigtay in Falastiiniyiintu ay noqdaan bilaa rajo Israa'iil waxay bilowday dhisidda darbiyo iyo saameynta baro lagu baarayo dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiintu sanadkii 2005 Israa'iil waxay ka baxday Gaza laakiin waxay halkeedii ka sii waday deegaameynta daanta galbeed sidaas ayayna Xamaas ku heshay awoodda Gaza daanta galbeed iyo Gaza hadda waxay leeyihiin laba hogaamin oo kala gaar ah Israa'iil waxay ku soo rogtay xayiraad nooc walba ah taasoo ay ku mamnuucayso wax kasta oo dhaqdhaqaaq ah haday noqoto dhul hawada iyo badda haddaynu ku jirno 2020 xaaladda weli waa sida tan Falastiiniyiintu